fitna momel anda mina iyana dad badan bay isugu tagayo laaya akhira waa la iska soo wada kiciyay Falastiin way xoroobaysaa akhira taamur kuma jiro xadki waqtiga ay doonto ha qaadato waa xoroobaysaa laakiin intee baa laga dilayaa ama intee markay dhaawacanto ama dib intee leeg markay gaadho Falastiin waa meel ama Gaza markaynu ku soo koobnaba lama mid aha baynu leenahay shucuubta kale aynu tilmaamayno waayo waxay dhahdaan shucuubta dagaalanta waa inay heshaan dhul ballaaran oo ay ku dhuuman karto jabahaadkeeda iyo waxeeda tani waa meel kooban waa inay yeelataa bay dhahdaan dhul topografigiisu ama qaab dhismeedkiisu qaab lagu dhuuman kara yahay sida Afghanistan oo kale buurale iyo waxa tani waa banaan waa inay yeeshaan bay dhahdaan cumq istiraatiijiya meel ay dhaawaca iyo dhuumashadood iyo waxoodaba geysan karaan oo cid ku tiirsan kuwaana ma haystaan iyagaaba cunaqabatayn ku hayaan ومع ذلك وحاصر دن او جيرو لليهي way khilaafsantay kuwii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gargaar ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wallahu ghalibun ala amri ilaahay arrinkiisa isaga ku xoog badan cidina ku xoog badan ma isagu xuduud subax walbana waxaynu dhahnaa raditu billahi rabba ilaahay maamulkiisa iyo rabbinimadiisa ayaan raali ka ahay bay subax kasta ku dhawaaqnaa adduunka ilaahay wuxuu inoo sheegay sunnatul mudaafac in la inay taxamayo sunnada dadku inuu isriixayna jiri doonto walaw yashaa Allahu lan tasara minhu walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd ilaahay hadduu doonayo waa u hiilin lahaa waa u guulayn lahaa laakiin waa la isku keenay taxamaya sunnatul ibtilaa iyana waa jiraysaa dadku muuqaalkan uu wada leeyahay wada lahaan maayo ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وإذن اتحامينا بايلها يدي إلا يلغموشي يكوين مجاهدين تا يكوين الصبرية وركيننا وعضاضه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب سيداتهين الهيد كدين ما يبال يكوين حن يكوين سنبال كلاموشينيا dad badan oo muslim la moodaya cadaatay inaanay muslim ahayn dad badan oo la moodaya inay wax difaaciyaan baa cadaatay waxooda inay nifaaq ahaayeen dad badan oo sheeganaya xuquuqul bini'aadam baa cadaatay inaan waxba ka jirin dad badan oo lahaa kaalmiya caawiman dunida siinaa baa cadaatay inay rasaasha hubsiyaan dunida dad badan oo wax sheeganayay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo tilmaamayaa وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا دغالadu waxay u dhacayaan inay tahay in la kala ogaado kuwa iimaanka laga helay kuwa munaafiqiinta isbedeladuna dunida isbedelada ka dhacaana dagaalada dabadood bay dhacaan dunidu dagaalkii koowaad isbedel baa dhacay sheegaya khilaafada islaamiga inay dunida ka baxdo oo gaal isugu soo haro dagaalkii labaad ee dunida isbedel baa dhacay sheegaya Maraykan inuu hoggaanka dunida qabsado dhaqaale iyo hub iyo wax walba waraaqdiisa intuu daabacdo inuu dunida ku hoggaamiyo dagaalada dunida hadda ka socdo aad u tiro badani dagaalada dabadoodun baa dunida isbedeladu ka dhacaan waaweyni baa la yiraahdaa isbedel badan baa ka dhici doona لكن اسبدل كاس انت ودعي وين كجرينا انغنا سنه الابتلاء قالدنا وكجريسا سنه الاستدراج ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين الهي وحلي يوم لين قالوا كادين تانو كادين يقولها يريري هليان ان لليه هي خير قرار صدقه dambigu bay kororsanayaan iyo booska naareeda ay galayaan sidoo weeye Gaza waxaan jeclay hadii waqti la helayna waqti aan hadda ahayn ka hadlo laakiin waxaan ku soo koobaya inaga maxayna la gudboon ka muslimiinta muslimiinta maxaa la gudboon awalan muslimiinta guud ahaan waxa la gudboon inay u hiiliyaan hiil muuqda waliba
وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر هي الموضة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. حالا أنت نبى إلهي سبحانه وتعالى يود قال ويدين إلهي جدك هي مسلمين تا مستضعفين تا رقية ضمرية عقول بالي كلبات أين لابد بوني هيل كاسي كمدا وأين ينود عينه وإلهي أبرنا سبحانه وتعالى إبدا. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صحابة سي مكة كحنيد وسافر الكروايي إسقوا مدينة شوقة وحود عيني صلاة قدهيدا اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي الربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. حديث الصحيحين كقصار نبي عليه الصلاة والسلام وحلها إلهي يوم بدبادي الوليد بن الوليد نك الله يرحمه يا سلمة بن الهشام يا عياش بن الربيعة لما كم إذا بجهل بيحكوا هي ولا لكي إلى قوة بدبادي بولاية مستضعفين المؤمنين تكاله إن ندعي إن والسلاح وين إنه هيسنوكو كلبات وين إنه عربك وجهي لنا كلمة حق عربك وين إنه وجهي لنا وهذه الصوب نجوا حقائق ذكرة دوني ضد بدن النية سبايس كذا أنت وارك سان قلبك سياسيين تودا يأتي مصالح دلهينا نبي وصعدان dhalinyarada iyo caamada iyo shacabka waxba ogeeyna dhan kale hadda u socda waxaana keenay TikTok iyo wax la mid ah war la gaarsiiyay oo bini aadamka iyo halka dhibto maraysa ay u muuqday ayaa keensaday idan ama cilaam ha noqoto ama si kale ba loo gaarsiiyay kelmadayna ku caawino oo waxa jira inuu soo bandhigno. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي قالوا سوما قيل سقوا الله ضي الصحابة الحديث كمسلم علها أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل. صحابي قبي يا حسان بن ثابت يا الرجل لم يتكاها ويرى لها ويرى كيلوحك أدقيا هي قموك ليبك الردستيسة آية دول كديمقراطية لشرقية دوك جلا dadka masaakiinta cashuurta laga qaaday weeyaan waxa dadka lagu laaya dadka cashuurta laga qaaday haday toosaan oo waxaan dantooda ahayn iyagu mar rabaan wuxuu inay ku baxaan wax badan baa dunida isbedeli doona. sawgeed nabigu alayhi salaatu wasalaam markuu xasan gabayga marinayay wuxuu isagoo dhinac taagan lahaa inna ruuxul qudus la yazaalu yu'ayyidu ma nafahta 'an ilahi wa rasuli. ruuxul qudus ka jibril كما زولين نكون كالمينيو أنت إلهي يا رسولك الدفاع يسمى النبي عليه الصلاة والسلام وحكى وأنت نفسي سنوح وياه وينودينا إن نمار كنت أجردت كمسلمين تضعف ضعف ضد كاسي بقولك كن كرونا في واحد انتي iyo wax dhaawaca inta dhimatay Allah u naxariisto iyagu waa tageenba xagga Rabbi u baxay laakiin intay ka tageen dhaawaca inta hooyo kaligeed laga tagay inta ilmo yar oo aqoon aan abiyo hooyo